gudida ka hortagga xanuunka coronavirus ee gobolka Saaxil ayaa maanta si rasmi ah u anbabixiyay gaadiid kala duwan oo dhinaca wacyigelinta oo ka howlgali doona deegaanada gobolka Saaxil waxaana gaadiidkani saaka ay ka anbabixeen hiirti waa bari xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil oo ay isugu yimaadeen gudida ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka safmarka ah ee coronavirus waxaana halkaas ugu horeyn hadal ka soo jeediyay mas'uuliyiinta isbitaalka degmada Berbera iyo sidoo kale xubno iyagu gudidaasi ka tirsan oo bulshada u soo jeediyay inay ka feejignaadaan cudurka coronavirus isla markaasina ay qaataan talooyinka ay siinayaan madaxda qaranku caafimaad ahaan waxaanu diyaarinay baabuurtaasi markay tagaan goobaha waxa ku sii sugaya shaqaale caafimaadka ah oo diyaara oo qolo walba ilaa deegaankeeda ilaa tuuladeeda ilaa intay talaalka iyo caafimaadka ka fidiso ay u qoondaysan tahay inay gaarsiiso wacyigelinta waxa baxaya tiimamkii waxa ka qayb qaadanaya afar baabuur weeye laba dawladda hoose iyo labadii la soo diray laga soo diray Hargeysa laga soo diray ee gudida heer qaran soo dirtay hawshaasaynu halkan u taaganay insha Allah waxaan rajaynaynaa in hawsha sidii loogu talagalay u soo qabtaan wacyigelintuna ay sidii loogu talagalay u dhacdo insha Allah taala waana la shaqaynaynaa insha Allah follow-up-na waan ku samayn doonaa ilaa iyo muddo 2 bilooda waxa socday wacyigelin qeyr caadi ah waxa ka shaqeynayay baabuur aad u fara badan waxa hogaaminayay degmada iyo wasaaradda caafimaadka si fiican baa iyo gobolka intaba waa laga howlgalay run ahaantii tanna waa xoojintii labaad ee hareeraha ayaan maanta diraynaa howlwadeenadii caafimaadku waxay ka raaci doonaan insha Allah sida hortayba loo sheegay waxay ka raaci doonaan goobihii ay ku sugnaayeen bay ka raaci doonaan wasaaraddii warfaafintuna way la socotaa wacyigelintun annagoo fulinayna amarkii gudida heer qarana gobolkuna diyaar leeyahay gudi ahaan gudidii gobolka ee ka hortagga cudurka aafada ee coronavirusku wacyigelintii localkaana sideeday u socota oo markii horeba ay damaanad qaaday dawladda hoose ee degmada Berbera xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo iyaguna halkaasi fariin ka diray kahortaggu wuxuu ka fiicay daaweynta inagoo fulinayna sida in madaxdii horeysa ay sheegtay in awaamirta heer qaran iyo awaamirta heer gobol ee gudiga kahortagga xanuunkan aafada ee coronavirus waxaan maanta u kala diraynaa inagoo marka horeba wacyigelin xoogan oo aad iyo aad u xoog badan oo 2 bilood ku dhawaad soconaysay aynu magaalada Berbera ku haynay oo maalin kasta in ka badan 8 gaari oo maxay tahay wasaaradda caafimaadka heer gobol maxay tahay xafiiska gobolka dawladda hoose ciidamada Booliiska iyo maxay tahay dhamaanba isduwayaasha gobolka ay ka qayb qaateen inoo socotay waxaan bulshada ku wacyigelinaa u sheegaynaa kala qayb qaadanaynaa in waxa meheradihii loo fudeydiyay ee iskuuladii loo xoray ee goomihii dad kulmay loo kala fogeeyay ma yahayn la isma fasaxayna waa la kala fasaxayay marka mar labaad iyo saddexaad waxaan ku celcelinaynaa bulshadu ha kala durugto ha iska ilaaliso inagoo dhaqan ahaan markiinu horeba dad ururanahay oo guriga ku urursan oo makhaayadda ku urursan oo dukaan ku urursan oo maxaan ku dhahdaa iskuul ku urursan oo malcaamad ku urursan haddana ilaahay nooma keene maadaama uu si fudud dadka u marinayo o u leynayo waxaan ku celinaa bulshadeennu waxaan leenahay waalidiinta waxaan leenahay mas-uuliyiinta dadkii la fasaxay la isuma fasaxine waxaa loo fasaxayay waxbarashadiisa looga xidhay ilmahaaga in la badbaadiyo gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa sheegay in gobol ahaan ay xil weyn iska saarayaan sidii ay bulshada u gaarsiin lahaayeen fariinta ka socota gudida heer qaran isla markaasina ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen xanuunkan safmarka ah ee adduunku ka qayliyay laakiin tan maanta waa tu dhammaan si siman gudigii heer qaran ee ka hortagga aafadani ay hogaaminayso oo gobolladoo dhanba ka hirgalay ayaynu inaguna maanta maxaan ku dhahdaa 6 gaari ay ka howlgalayaan 2 gaari degmada Sheekh hawshoodii way wadaan halkana waxa taagan 4 gaari ee degmada doorashada Berbera ee gudigaas ay soo direen inagu marka horeba waynu ku jirnay wacyigelinteennii iyo hawsheenii sidii bay noogu soconaysaa tanna waa xoojin gudiga heer qaran noo soo direen wuxuun baan leenahay howlwadeennada aanu dirayno fariintaa si fiican u gudbiya annagu fariintaan idin soo gaadhsiinaynaa lixjal aanu ka qabnaa dhallinyarta iska daaya ciyaartaa galabtii aad bannaanada intood u baxdaan aad ciyaaraysaan waxaa laga sheegay gruub halkan ka baxay shalay
oo ilaa sheekh tegey oo baabuurka haystay dee meel intay ka qaadeen bay meel kala tegayaan waxaan leenahay waar joojiya gaadiidkan wacyigelinta xanuunka coronavirus ee saaka ka ambabaxaya cisbitaalka weyn ee magaalada Berbera ayaa waxaa hogaanuhu ka qayb qaadanaysa wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee dhaqanka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaalinta wacyigelinta iyadu ka qayb qaadan doonta muddada lagu jiro wacyigelinta cudurkaasi halista ah ee adduunka ka qeylisiiyay ee loo yaqaan COVID-19 Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera